السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أتهي أبا قرب جوجا فرنتي دانير دور من إنكير دقيسو هنقابل الغاضية إنا وحكو أنفعي كوشا إن شاء الله. هدي أتهي أبا قرب جوجا وحاتهي أمباسدركي رجع سوماليد وفدي جرجاي ومثلي رجع سوماليد أبرقن كودا ينوع أيهين adiga ayaa ambassador noo ah gurigaaga dhexdiisa marka la joogo wanaagaaga iyo habdhaqankaaga waxa casharo badan ugu sugan yahay oo ka barta gabadha adiga oo dhashay oo lagu kobciyay laguna booriyay laguna dhiirigeliyay iskuulaadka ay dhigato waxa loo yaqaan inquiring minds maskaxa waxa isweydiisa in every scenario iyo every situation inay wax ka barato marka haddii aad tahay aabba wanaagsan oo ka farxiya oo kolkoliya oo u roon oo waqti siiya oo farxad geliya oo ammaana oo qalbiga ka dhisa oo garab istaaga oo shaqada guriga la qabta oo emotionkeeda la wadaaga xaaskiisa haddii aad tahay gabadhaadu casharo waaweyn ayay ka baranaysaa sida ninka Soomaaliyeed uu xaaskiisa u tiriid gareeyo farxad iyo reyn iyo qoys degan oo xasiloon buuna noqonaya reerkaas gabadhaada yartaana way kugu sii jeclaataaba habka aad hooyadeed u wanaajisid laakiin on the other side haddii aad tahay aabba qaylo badan oo iska dibooda oo dhafar badan oo qeyr mas'uul ah oo xaaskiisa ka oohiya oo af xumeeya oo qalbi dila oo aan dayacin oo aan daryeelin oo aan dareemadeeda dhowrin oo asaageed u liida oo aan economically dhaqaale ahaan garab siinin oo aan waqti ahaan garab siinin oo aan shaqo ahaan garab siinin oo aan dhinac walba ka kabin financially emotionally dhinac walba kolkolin ka farxin oo bahdilo domestic violence iyo mararka qaarkood gacan qaad geysta haddii aad noocaas tahay gabadhaada yar tahay cashar bay masaladaas laftigeedana ka baranaysaa ha is oranin waa laba qof oo waaweyn oo murmay ilmo ayaa idinku dhex nool waxaana laga yaabaa marka aad ku qaylinaysid xaaskaaga oo dhibaysid gabadhaada birkin madaxa inta saarato inay leedahay ilaahu jooji hooyaday oohinteeda waa very painful with that environment gabadha ku korta ah oo soo hana qaada ah oo hooyadeedu abuse iyo torture iyo dayac iyo way kibirtay iyo naagaha qurbaha kibray iyo aflagaada iyo lagu sameeyo and I am not saying ragga Soomaaliyeed oo dhan baa sameeyo masha Allah there is a classic culumo aqoonyahan dhalinyaro farxad ku wada nool laakiin waa xaqiiqda on the ground inaan ka wada hadalno burburka qoyska oo ku badanaya qurbaha inaan masalooyinkan taabano oo arinta jeexna waa qasab masaladaas gabadhaada yarta oo ku kortahay waxay qaadaa fear of men ragaba inay ka cabsato now iyadoo sidaas qabta bay banaanka u baxdaayo college gaartaayo jaamacad gaartaa markaas waxay aragtaa bay'adan qurbaha dad حبيبي يا baby يا ice cream يا come and walk with me come and dance with me come to spending time another picture kale يا community kale oo ajnabi ah hatta mararka qaar kood nan muslima ah ayay aragtaa kuwaasoo totally sawiraya sawir ka duwan kii aabaheed oo tusay I am not saying koodaas ahsan laakiin totally waxay aragtaa dad wada peaceful ah oo wada xaragoonaya oo isqaba oo isla qoslaya oo holiday wada aadaya oo waqti wada qaadanaya back of her mind kara waxa ka buuxa oo ku jira ilaa iyo yaraanteedii qayladii iyo awdadii iyo gacanqaadkii iyo murankii iyo not even necessarily gacanqaad ma ah emotional damage waxa la dhahaa jirta oo gacanqaadka ka daran in la bahdila gabadha la caayo oo laga deeyo waxaas gabadhaada yartahay halka back of her neck halka maskaxda qaybta dambe ku haysataa أغير كنا وحي خطر وطاهي
inay soo istaagto conclusion gaarto aniga ninka Soomaaliga ma rabo adeer maxaa guursanaysa may adeer aniga nin Soomaali ma guursanayo why wiliga ma isweydiisa why is it growing so many young Somali girls inay hadda ajnabiga raacayaan why I am not saying all the answers baan ogahay laakiin from experience working with young people 10 years waxaan ogahay one of the contributing factors mid kamida waxyaalaha waxaan keenay inay tahay habdhaqanka ay guryaha ka soo arkeen hadii aad tahay aabba xun bad ambassador baa tahay gabadhaadiina raggii Soomaaliyeed baad qalad ka fahamsiisay ee ogow don't blame her hadhow way kibirtay iyo waa kan iyo no you adiga ayaa ku yiri si dadban hadii aadan doonaynin sida hooyada inaad oydid the rest of your life ha guursanin Soomaaliyeed adiga ayaa ku yiri si dadban smoke laakiin that's the conclusion ay kala baxday haddaad weydiisana waxay ku leedahay aniga ninka Soomaaliga ma rabo oo adeer why waxay ku leedahay I don't want to go through painkii iyo sufferingkii iyo ilmadii iga dareereysay xijaabka hoosteeda hooyadii ka dareereysay intii aan garaadsaday oo aan arkayo dhan ma rabo inaan maro marka odayaasha qurbahow culumma idinku jirta aqoonyahan baa idinku jirta akhyaar baa idinku jirta Allah idin barakeeyo naga fiicano iga fiicano reerahooda iga ron I'm not painting same picture laakiin ragga aan la hadlayo waad istaqaanaa waa growing numbers ama qaad cunaha ahaado ama fadhi ku dir la ahaado ama mid iskaxdu qufulan tahay oo naagi waa kibri wala iska celiyaa naga ku buuxsan tahay ahaado change your mind habdhaqankiina wax ka bedela haddii kale caruurtiinii baad waxaad u gelinaysaan qolooyin kale inay ka haystaan oo ay raacaan mas'uuliyaddana adiga iskale because afka kamaad oran laakiin action ahaanba waxaad ku tiri I am nin Soomaaliyeed habkan ayaana u dhaqmaa anagoo dhan saasay noo qabtaa waa talo walaalnimo waa talo ku salaysan arrimahan bulshada oo aan muddo dheer ka shaqeynayay waa talo ku salaysan waalidiinta iyo iskuullada intaan la joogay oohinta iyo silca iyo burburka aan arkayay iyo absent fatherska maqana joogayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa hooyo Soomaaliyeed ba hadda ka hor waxay tiri mudaharaad iyadoo la taagan yahay dhaxan dhacayso bishii February I remember shivering jirkeedu waa gargariiray wariya inta ku soo booday Maxamed Cabdi Daacad la yiraahdo magaalada London TV Royal ka shaqeyn jiray wuxuu ku yiri hooyo maxaa saacadan qabowga ku taagay waxay tiri hooyo waxa ii jooga guriga agoon aabale abahoodna uu London la joogo intaasoo sanana uusan arag halkan waxaan u imid mudaharaadka looga soo horjeeda qaadka inaan bal one day maybe abahaas carruurta u soo celiyay alxamdulillah abahaas hadda carruurta uu ku soo noqday feedback reerkaasna dib baan u maqlay intaa reerka u dhaafi maayo laakiin ujeedada aan ugu soo hadal qaatay waxa weeye carruur badan oo agoon aabba leh baa qurbaha joogta oo danyaansan oo hagis iyo talo iyo tusaaleyn iyo role model inaad u noqotaan idinka rabee ragow maqana joogayaalow ragoo dhanna ma aha way is yaqaanaan kuwaan la hadlayo sidan wax ka bedela don't worry about dal iyo dawlad iyo muujin iyo xildhibaan iyo dalkaagu waa gurigaaga saaxiib the best thing at Somalia iyo Somali people u samayn karto waa adoo soo saara healthy happy family hooyo faraxsan carruur faraxsan oo garbaha is haysta oo muujadahan qurbaha ka dabaalan kara laakiin doodaadoo dhan ku soo koobin naagi waa kibreen Afrika tagay mid yar baan guursanaya come on man you're not even physically fit in some cases I don't want inaan kugu dheeraado laakiin xaqiiqatan ragow arintaas ha laga foorjignaado ha la ogaado aad baan idin salaamaya waa talooyinka arrimaha bulshada iyo walaalkiin Abuukar Cawaale waana jecelahay inaan feedbackiina however aad iiga fikir duwan tahay inaan feedbackaaga maqlo Allah idin barakeeyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.